صاحب الإسراء يا منبع القراء نرجوك بالعطاء يا رسول الله صلاة الله عليك سلام الله عليك يا سيدي نبيك يا رسول الله ونور الوالدين والنصر المنتمين لنا والمؤمنين يا رسول الله. madarasada culuumta sharciga iyo carabiga ee Siraaj Udaarayn ayaa xaflad qalin jabin iyo bandhig cilmiyeed isugu jirtay u qabatay arday dhameysteen qaybaha kala duwan ee shariicada islaamka. xafladda oo ka dhacday xarunta madarasadu ay ku leedahay degmada Wadajir gaar ahaan xaafadda Siliga ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka kala socday jaamacadaha Muqdisho ku yaala, waalidiin iyo culimaadudiin kuwaas oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir. ugu horeyn munaasabada ayaa waxa lagu dahfuray kalaamka alle والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أستاذ بشير شيخ علي oo ah maamulaha guud ee madrasada ayaa dahfuray xafladda isagoona soo dhaweeyay dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda kana warbixiyay taariikhda madrasada iyo waqtigii la aasaasay. madrasada waxa la aasaasay 2018 bishii koowaad kowdeedii oo ku beegan bishii afaraad 13deedii 1439 oo milaadiga macnaha hijriyada. ahdaafta madrasada ama madrasadu meesha ay insha Allah taala xoog saari doonto ama targetka u ah waa in laga qayb qaato dacwada islaamiga in la faafiyo jiilka soo koraya lagu faafiyo تعليم نظامي إن شاء الله تعالى إن الله فرو أرضيدي أو مجتمعي لدسو إسلامي هاي دينتي سسو فهم صحيحة أو وهلو قد بدأ إن شاء الله تعالى أتكلم هذون تا أهداف مدرسة إما تارجت كذا وحي تهاي قد بكوي هاي إن لا دم يسرو علوم تشرعي جاء وهذه الأرض ذا لو جاها قبترو qodobka kale waxa weeye labaad waxa weeye in la xoojiyo luqada carabiga ah aqris ahaan iyo qoraal ahaan iyo ku hadal ahaan iyo faham ahaanba. qodobka kale waxa weeye ardayda masaajida ama ardayda xalaqaadka loo yaqaano masaajida wax ku barata ama xeerta aanu naqaano inay ku soo biiraan tacliimta nidaamiga ah ilaa iyagu shariicadu way ka haabtaran yihiin way yaqaaneen laakiin shahaado aysan haysan. ardada marka baahidooda si loo dhameystiro ayaa madrasada ay xoog saartay. qodobka kale ee madrasadu xoog ay saaraysa waxa weeye in la dhiso shakhsiyo ama naf muslimad ah ee cilmi ahaan iyo akhlaaq ahaan u dhisan. qodobka kale waxa weeye in la soo saaro jiil oo aad iyo aad u qiimo badan ee bulshada intiisa kale ka duwan bulshada intiisa kale ka qiimo badan xag maadiyahan iyo xag diiniyahanba iyo in la soo saaro la helo dad culumta sharciga ah insha Allah taala xambaarsan waliba ayagoo shahaado haystaan jaamacadaha insha Allah taala ay ku biiri karaan dal iyo dabadba wayna dhacday oo hadda been ma ku sheegayno insha Allah taala meeshaad ka dhageysan doontiin insha Allah jaamacadaha ay ku biirana jooga dal kuwa dabada aaday oo arday naga baxay insha Allah taala oo madrasada ka qalin jabiyay kuwa madrasada ka qalin jabiyo jaamacadaha dalka ku biirana way jiraan insha Allah taala in loo joogan rajaynayna oo kalimadeedu sii doono insha Allah. sidoo kale waxa khudbad carabiga oo ka hadlaysa waxbarashada soo jeedisay mid kamid ah ardayda madrasada. يسرني ويسعدني أن نقف أمامكم لأقدم إليكم موضوعا موجزا حول العلم وأهمية. أيها الجمع الحضور، بالعلم يعلو قدر الإنسان بين الناس، وبالعلم يخرج من ظلمات الجهل إلى النور. وأول آية نزل
نزلت من القرآن الكريم تحثنا بتعلم العلم. يقول تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبالعلم ترتقي الأمم والشعوب، وبالعلم يبنى الأوطان، وبالعلم يسمو الإنسان ويرتفع من مرتبة البهيمية إلى مرتبة العلماء. ومن وصية لقمان الحكيم لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. dhanka kale waxaa ardayda madrasada la weydiiyey su'aalo ku saabsan diinta iyo kuwa soo bandhigayay funuunta kala duwan ee shariicada islaamka. dacdee baa la akhriyaa markaas waxay hurdada ka soo kacday. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأدنني بذكري. دعاء لا أقرأ مركا مش جلس. بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نكتب بدحي اللهم من مكان مخص جليس. تعذيب بالأخرياء مكان مخص كسو بحيث. وفعنا كمركا مخص كسو بحيث. نكتب مديك أيها اللهم لي. أن أغرينتي ما هو النحو؟ أما النحو محوية. النحو هو علم بقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول عام في أي مكان ولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد في مكة المكرمة ونشأ بها على الصدق والأمانات ومكارم الأخلاق. waxaan su'aalayaa ardayda meesha fadhida, waxaad ii sheegtiin qofkii ugu horeeyay ee qalim wax ku qora. qofkii ugu horeeyay ee qalim wax ku qora insha Allah ta'ala ardayda meesha fadhida qof garta haduu jiro bal intaas insha Allah ta'ala nala wadaaga. حتى سؤالش اسكتي ونبي إدريس. بسم الله مقع إلهي كبلا يا الله سوى الرحمن نحريست كود نحريستا، الله سوى الرحيم نحريست قاركا نحريستا. ألهاكم محايدين مشغولية التكاثر بطي اسكفان حتى زرتم المغابر قبريال كلا كبغتان كلا كجوكس سوف تعلمون مردا كلا كجوكس سوف تعلمون مردا بعد كندوتين ثم كلا كجوكس سوف تعلمون مردا بعد كندوتين كلا جوكس لو تعلمون هذا قال لهذين علم اليقين ابن ماذا قال كذا لترون الجحيم جحيم واد أرك لهذين ثم لترونها جحيم واد أرك لهذين عين اليقين وبالك ركتديسا ثم لتسألون والدين ودين دونا يومئذ ما ننتاس عن النعيم نمعد والدين ودين دونا. سؤال كواد ومحاي سكو سكا محالة بهاورت سكذا سيدا ويقانين عربتا واسيادو سيدا ويقانين علماء فقيه أهنا وواح والبا oo laga bixinay oo u sugnaaday jirka iyo maalka qaab qaas ana looga bixiyo ayaa la haasako. su'aasha labaad haddaan u gudubno waa sakadii ku waajibay sakayaa laga rabaa. saka waxay ku waajibaysaa qof walba oo muslim ah. qof kaal saka ma ku waajibay waa su'aal isweydiin mudan. qofka kaalka sakada way ku waajibay laakiin waxa ka dhiman توحيد قفا laga heen marka ma saka ma dhiibi karaba marka qofkaas waxa laha soo islaam kadib sakadii salaad wixii laga rabay kalaal dambaa lagu sheega. اسم الفاعل فاعل اسم كيس هذا محله. تعريفه تعريف اسم الفاعل اسم الفاعل كتعريف تيسا اسم ويه اسم كاسو مشتق لغا سو دنبشي من مصدر الفعل فعل كمصدر كيسا فعل كي المعلوم لوغا للدلاله تسين درتيدنا لوغا سو دنبشي على من كتسي قام بالفعل فعل كوكد القميو على وجه الحدوث سودرين قاب كيدنا ووجود القميو. madarasadu ma aha mid lagu barto shariicada islaamka oo kaliya balse waa madaraso isugu jirta maadi iyo diini. sidaas daraadeed waxaa khudbad ingiriis ah oo ku saabsan hooyo soo jeedisay mid ka mid ah ardayda madarasada. Mother is indispensable. Mother is a female parent of one. She is a wonderful creature. The mother carries and keeps us in her stomach approximately 9 months or more than.
She sweetest and beats her lips with pain when she coats in labor, but she forgets when she says her tiny baby on her lap. Ustaad Maxamed Xasan Balac oo ah diinka kuliyadda shareecada iyo qaanuunka ee jaamacadda Daaha, Ustaad Aweys xogayaha kuliyadda shareecada iyo qaanuunka ee jaamacadda Banaadir, iyo Ustaad Yaxye Sheekh Maxamed oo ka socday jaamacadda Imaam Shaafici ayaa dhammaantood ka hadleen xafladda iyagoona ardayda kula dardaarmeen in ay waxbarashada halkaasi ka sii wadaan. sida la sheegay waxaynu idinka soo booqanay ama aynu ka soconaa jaamacadda Daaha Alcaalamiya. jaamacadda Daaha faahfaahin iyo faala gooniya inaan ka bixiyo ma rabo. waa jaamacad inta badan dadka halkaan fadhiyo iyo in lamida ay ka warqabaan. waxaa gudoomiye ka ah sheekhana Sheekh Abubakar Xasan Maalin, sidoo kale ka mid ah howlwadeenadeeda dhammaanna umuuraheeda dadka tawalinayo waa dad aad u qiimo badan. sidoo kale ardadeeduna waa ardada halkaani ka soo baxdo sidaan u dhisan arday lamida. sidoo kale waxay ka mid tahay jaamacadihii ku soo gudbay liiskii ama jaamacadihii la aqoonsaday ayay ka mid tahay. waa farxad gaara. ardada dhammaan halkaani joogto iyo qalinjibiyaasha iskuulkani ka soo qalinjibinayo iyo kuwa ka soo qalinjibi doonaba waxaan leenahay jaamacadda Daaha ku soo dhawaada. waa jaamacad idin soo dhawaanayso, weliba si wanaagsan idin soo dhawaanayso. markaan leeyahay si wanaagsan ayaa loo soo dhawaynhayaa keligood ma aha, laakiin dhammaan ardada jaamacadda ku soo biirayso macaahidda iyo iskuullada ka imaanayso si fiican baa loo soo dhaweeyaa. laakiin iskuulkaani si gaar ayaa ardadiisa loo soo dhaweeyaa. waxaan tusaale u soo qaadanhayaa Dahabo oo runtii kaalintii koowaad sanadka hore u gashay in jaamacadda ay si bilaash ama lacag la'aan ay ku dhiganayso. arday kasta ee iskuulkaani kaalinta koowaad galo ama maamulka ay u arkaan in qaybaha fiican ama dadaalkiisa iyo usluubtiisa ay fiican tahay, jaamacadda si wanaagsan baan ugu soo dhaweynaa. dhammaan kuwa kalena waa ku soo dhaweynaynaa. ardayga markii heerkaani uu soo gaaro, heerkaani fiican wanaagsan uu soo gaaro, dad badan baa ku tartamahayo. dadkaasi badanna waxay doonayaan qiimaha iyo sharafta aad leedihiin. aad baan ugu faraxsanahay in laydinku tartamo, laakiin waxaan rabnaa inaad ogaataan meesha aad u socotaan hadba sidii lagaga soo dhaweynayo inaad ku xisaabtanto. waxaa jirtay sheeko yar, runtii ma aha wax akhyaar loogu maamaa, laakiin waxaa la yidhi ninbaa aad u xanuunsaday, waagii dambena waa geeriyooday. rag baa marka waxay damceen maadaama ninka uu dhintay oo booska uu ka baxay in wadaadda xoogaa laga faa'iidaysto, maadaama uu duqi meeshii ka baxay in la yidhaahdo booskaan buuxinaynaa. marka mid baa wuxuu yidhi walaashay allah u naxariista hebel, qof aad u qiimo badan u ahaa, sabar iyo iimaan allah naga siiyo, runtii wuxuu ahaa dadka xaafadda ugu fiican, ha imoogaan ayuu gadaal uga daray isagoo xoogaa fursad ka raadsanay. gabadhii waxay tiri waa mahadsanta, habar khayr allah ku siiyo, sharafi qiima aad leedahay, waa lagaa soo horeeyey. marka waxaan rabnaa horta jaamacadaha markay idin yimaadaan inaad dhahdaan waa laydinka soo horeeyey, jaamacadaha idinka soo horeysa inaad dhahdaan waa rabnaa. aad u mahadsan tihiin. marka hore waxaan u mahad celinayaa maamulaha iskuulka Sheekh Bashiir Sheekh Cali, macallimiintiisa iyo dhammaan cid kasta oo xafladan agaasinkeeda qayb ka ahayd. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa waalidiinta oo qaybta ugu weyn muuqata leh mawaadiicdan oo kale, iyo sidoo kale ardayda maantay bandhiga tacliimeedka quruxda badan halkan ku soo bandhigtay. ayagana waxaan leeyahay hore u socda dadaalkiina waxbarashada, maadaama waxbarashadu aanay dhammaan dadaalkeedu hore u sii wada. intaa kadib magacaygu waa Yaxye Sheekh Maxamed, waxaan ka socdaa jaamacadda Imaam Shaafici oo ah jaamacad ka mid ah haddaanay ahaynba jaamacadaha ugu dhow madrasadan ama iskuulkan Siraajudiin. sidoo kalena ay dhigtaan jaamacadda arday ka baxday madrasadan Siraajudiin oo ay ka mid yihiin Aways Cabdi Cabdiraxmaan iyo Cabdullaahi Cabdi Cabdiraxmaan oo ah laba arday walaalo ah islaana dhigtay kulliyadda shareecada iyo qaanuunka ee jaamacadda. intaa markaan ka gudbo waxaan leenahay marka jaamacaddeena iyo jaamacadaha kale oo bahwadaagta ahba
waa halkan waa u soo wada horreynay intaas waa kaftan. waxaan mahad celinayaa maamulka iskoolka Siraaju Daarayn ee aan ka soo qayb galnay xafladda bandhiga oo aad ugu faraxnay. waxaan kaloo mahad celinayaa waalidiinta ka mid noqotay dadka ardadoodu dhigtaan. waxaan kaloo mahad celinayaa ardada wax ka barato oo na tusisay habka ay wax u bartaan iyo aqoontooda. yani anaga macalinimo iyo meelahaas markaan joogno waxaan aragnaa dad jaamacadaha dhigahayo oo ciyaalka yariiska hadda siirada rasuulka iyo na baraayeen aan boqolkiiba hal aan soo gaarin. marka aad iyo aad aan ugu farxay walaa markaan arkay. aad iyo aad u mahadsantihiin. ugu dambeyntii Sacdiya Daahir oo ku hadlaysay afka waalidiinta ayaa goobta kalimo ka jeedisay iyadoona u mahad celisay macallimiinta madrasada Siraaju Daarayn ee heerkan soo gaarsiiyeen ardadooda. anigoo ku hadlaya magaca waalidiinta Siraaju Daarayn marka hore waxaa mahad mudan Allah subhanahu wa ta'ala ee isku kaana keenay xafladan aadka u qiimaha badan. marka labaad waxaa mahad halkan mudan macallimiinta iyo maamulka xafladan oo soo agaasintay. anigoo ku hadlaya magaca waalidiinta waxaan halkan ugu mahad celinayaa macallimiinta madrasada Siraaju Daarayn. marka macallimiinta waxaan dhihi lahaa macallin mahadiina Ilaahay soo koobi kara. jazakallahu khayr. Shaafici Maxamuud Xasan, Xayaat Islam TV, magaalada Muqdisho.